saddexdii bishii sagaalaad 1952 aabba lahaa 3 caruura da'diisuna ahay 28 jir lagu magacaabay Maxamuud Xuseen Mataan ayaa lagala baxay qolkiisa xabsiga laguna daldalay isla xabsigaas kaasoo ahaa qofkii ugu dambeeyay ee dil lagu xukumo dalka Britain xaq darana loogu xukumay dilkaas Allah u naxariistee Maxamuud Xuseen Mataan wuxuu ku dhashay galbeedka magaalada Hargeysa 1923 kuna soo barbaaray isla magaaladaas kadib ayuu soo aaday wadanka Britain gaar ahaan magaalada Cardiff si uu ugu biiro shaqaalaha badmaaxinta ee ka shaqeeya badda loona yaqaan Seaman isla magaaladaas ayuu ku bartay gabadha la yiraahdo Laura Williams oo ka shaqeynaysay warshada waraaqadaha muddo 3 bilood kadibna waxay isku guursadeen isla magaalada Cardiff Maxamuud iyo xaaskiisa waxay isla mareen dhibaatooyin badan maxaa yeelay dad aad u tiro badan oo ku noolaa magaaladaas ayaa cunsurinimo awgeed ka xumaa guurkooda kuna dhibaateeyay 6dii bishii 3aad 1952 ayuu ka dhaxelay booliska Cardiff meydka qof dumara oo la gowracay qoftaasoo lagu magacaabo Lily Volbert ahaydna 41 jir markii la gowracay kadib ayaa lagala baxay dukaankeeda lacag dhan 100 pound oo u dhiganta hadda waqtigan la joogo 3,000 pound reerkii ay ka dhalatay gabadhan la dilay ayaa ballan qaaday inay siin doonaan 200 pound oo hadda u dhiganta 6,000 pound qofkii keena wax macluumaad ah oo ku saabsan dilka gabadhooda si ay u fududaato soo helida gacan ku dhiiglaha booliska ayaa si degdeg ah Maxamuud ku soo qabtay markuu nin daris la ahaa dukaanka haweeneyda lagu dilay laguna magacaabo Harold Cover dhalashadiisu ahayd Jamaican ahaana madow marqaati beena ku oogay Mataan oo yiri inuu ku arkay dukaanka hortiisa habeenka la dilay Lily waxaa jiray marqaatiyaal kale oo badan oo ay ka mid ahaayeen qaraabada ninka ka been abuurtay Maxamuud sheegayna inay arkeen nin wax badan ka madooba kana dheeraa qabayna labis aanba waligii lagu arag Maxamuud balse boolisku dhag jalaq uma siin waxaa kaloo jiray dad badan oo ku arkay Maxamuud meesha haweeneyda lagu dilay meel aan ahayn laakiin way iska cadayd inayba rabin runta iyo macluumaadka soo gaaray inay aruuriyaan oo go'aankooduba uu iska cadaa Maxamuud Xuseen Mataan ayaa laga xaqiray xuquuq badan uu lahaa oo ay ka mid yihiin in loo qabto lawyer ama uu helo turjumaan si ay uga caawiyaan xagga luqadda iyo arinta doodiisaba laakiin wuu ku adkaystay inuu bari yahay erayadii ugu dambeeyay uu ku celcelinayayna waxay ahaayeen I kill no woman oo ah anigu ma dilin qof dumara Laura Mataan oo ahayd xaaski Maxamuud ayaa 24kii bishii 1952 markuu xukunku dhacayay taagnayd maxkamadda horteeda iyadoo loo diiday inay gasho gudaha haysatayna 3 caruura Laura waxay ku dhaaratay inaysan ka hari doonin arintan magaca ninkeedana ay bari ka dhigi doonto maxaa yeelay waxay hubtay inuu ninkeedu bari yahay dhowr jeer ayay isku dayeen faamiliga uu ka tagay marxuumka in loo furo maxkamad cusub laakiin way ku guuleysan waayeen markii ugu horeysay oo loo diido in loo furo maxkamad waxay ahayd 1969kii 45 sano kadib markay ka soo wareegtay dilkii xaq darrada ahaa taariikhduna ahayd 24kii bishii 2 1998 ayay ku guuleysteen reer Mataan inay maxkamadii xaqiijiso inuusan dambiile ahayn marxuumka dawladda Ingiriiska ayaa lacag magdhow ah u ogolaatay 3 wiil iyo xaaskii uu ka tagay Mataan waxay kala oo ogolaatay maxkamadda in lagu aaso marxuumka qabuuraha islaamka ee Cardiff oo laga soo baxsho qabuuraha xabsiga qabrigiisa waxaa lagu dul qoray erayo aad ku qiiro gelinaya erayadaas oo ah killed by injustice oo ah xaq darro lagu dilay ma ka heshay barnaamijkan ma rabtaa in ay Bilan Channel ku soo gudbiso dhacdooyinkan oo kale taaba subscribe si ay kuugu fududaato inaad la socoto barnaamijyo si heer sare ah loo soo diyaariyay